wada fuul la wada aaday hadda intiba ma lahan waqti aan haysanaa aan caruurta la sheekaysan karno aan time la qaadan karno waxaan kaloo idiin sheegaa walaalayaalow banaanka marka cuntooyinka caruurta ay ka dalbanayaan caruurta aan ka ilaashano cuntooyinka meelaha aan maaragtay wax xalaal aan lagu gadin laga soo gadanayo ilmaha aynoo waa ognahay si easy kusoo gataan kuweyga waa saas ilmahoo dhan waxay jecel yihiin si yaroo fudud meelaha xalaal ahayn meelaha xalaalkeena wada jecel yihiin wax ka wada dalbadaan marka biitsada iyadoo xalaal hadaa heli karna inay u ogolaana ma ahan wax kasta waxaan heli karnaa asagoo حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أيان لول جنال كانك داونيسان أيان لول جنال واي وحايد الله أصحابته جنال كيو كحرن سورة دواذا سيئتين إيفي عنتهين هذا الله أصحابي أنا روا إنا عاو إذين شاو إن شاء الله ما دام guriyihii la wada joogo waalidiinta iyo caruurta ee guriyihii la wada joogo jaanisaa la haystaa waxaan idin leeyahay asxaabi caruurta halala sheekaysto waqti halala qaato alxamdulilah guryaha wada joognaa awal waxaa waaye waalidiinta shaqaa lagu wada cararaay mashquula liska ahaa qofkan shaqahadin intaa ilmo iskuul gee kasoo qaad dugsi quraan gee tuurar gee inta gee kuuman gee waa liska daba wareegayay laakiin hadda intiba ma lahan guryaha lagu wada jiraa marka waalidiinta waxaan leeyahay oo aniga ayaan aan u horeeyo insha allah waxaan idin leeyahay caruurta aan la sheekaysano waqti aan la qaadano siiba hooyooyinka caruuraha aan la sheekaysano aan cunto guryeen intaan ku samaysan aan casuumno caruurta aan la fariisano miiska aan wada fariisano aan wada sheekaysano iyo caruurta iyagana intay qolal iska galaan markay maarata homeeyagidoodii waxooda qoraan guriga ilaan hadda iskuuladii guryaha lagu dhigtaa lee yaa shib inta laga dhaho maaragtay technology-gan kombiyuutaradan iyo taleefanadan ilmaha yeela tegin aan wada fariisano waxyaalo badana ciyaalka ku jiraan ciyaalka halala fariisto halala sheekaysto waxyaalo badana ka buux caruurta waxaa ku jira aan maaragtay inta iskuulka geynayno dhan waxay soo maraayeen haddii lala sheekaysto lala fariisto wax badana caruurta ka fahmi doontaa aa ka ogaan doontaa marka waxaa kula talin lahaa waalidiinta dhan waqtiga aan hadda haysano aan ka faa'iidaysano waqti fiican aan haysanaa oo annagii caruurteena isdhexgeli karno oo sheekaysan karno caruurta jaanis walaha laiskuma heli jirin laakiin hadda jaanisaa isku haynaa caruurta taa markay labada bilood oo fasaxyada ay galaan stiil dugsiyaa la aadayay kuumankiyaa la aadayay tuurarkiyaa la aadayay hadda intiba ma laha dugsiga lama aadayo kuuman la aadayo male albaabka lagama baxaayo waalidkiinu adeeg yar soo qabanayo ma wax albaabka baxaayo ma jirto marka waxaan idin leeyahay laga faa'iidaysto waqti fiican aan haysanaa aan ka faa'iidaysano oo caruuraha waqti la qaadan karno oo la sheekaysan karno waxaa waaye halis barto si fiican halaysku barto caruurta waan dareerin jirnay iskuuladan geyn jirnaa kasoo qaadi jirnay mashquulkeena iska badnaa hataa labada bilooda samarka stiir mashquulkaa badnaa oo caruurta waxaa waaye iskuulada leela xiray dugsiyada qur-aanka wada fuul la wada aaday hadda intiba ma lahan waqti aan haysanaa aan caruurta la sheekaysan karno aan time la qaadan karno waxaan kaloo idiin sheegaa walaalayaalow banaanka marka cuntooyinka caruurta ay ka dalbanayaan caruurta aan ka ilaashano cuntooyinka meelaha aan maaragtay wax xalaal aan lagu gadin laga soo gadanayo ilmaha aynoo waa ognahay si easy kusoo gataan kuweyga waa saas ilmahoo dhan waxay jecel yihiin si yaroo fudud meelaha xalaal ahayn meelaha xalaalkeena wada jecel yihiin wax ka wada dalbadaan marka biitsada iyadoo xalaal hadaa heli karna inay u ogolaana ma ahan wax kasta waxaan heli karnaa asagoo xalaala ilmaha waxay u baahan yihiin oo dhan insha allah because waxyaalahaas yaryar oo maaragtay aan soo gadanayno biitsada iyo waxaas caruuraha soo gadanayaan oo meelaha aan xalaalkeen laga soo gadanayo waxyaalaha dhibka iyo problemka iyo maaragtay ilmaha rafaadka buuqa isdagaalka iyo waxa keenaya dhan waxaas xaaraanta ilmaha ay la siinayo waa xitaa ilmaha ay wareerayaan ay cararayaan
waxyaalahaas ilmaha easy uga dhigeen annaga waalidiinta oo fudeed uga dhigno ma inaa fudeed uga dhigno inaa ka ilaashano waaye siiba dadka wadanka ku cusub aadan kala talnaa inaa ilmihiina weli freeshaa tihiin wax badanaa qabsan kartiin inaa ilmihiina meel wax xalaal xaaraan lagu gado inayna biitsa iyo waxbana liiga keenin oo ka ceshataan wixii ilmaha ay yeelayaan inaa u sheegtiin hooyaha noo keena inaa dhahdiin insha allah intaasa idiin sheegaya waxaana muhiimadeeda usoo galay ay tahay caawa ilmaha inaa waqti la qaadano sababta ay tahay ilmaha wax badan ay kuu sheegayaan inta hadda iskuullada xirnaa ilmaha markaa la sheekaysta adaaba yaabaysa waxay kaaga sheekeynayaan waxay kuu sheegayaan marka intaas hadda kuwa aniga guriga ii jooga ay ii sheegayaan ama ay maaragtay aan ka arkaayo ilmaha kale dhanna walaalayaalo waa saas caruurtaan aroortii aan bixin jirnay aan iskuulla geen jirnay aan galabta kasoo kaxeyn jirnay jaanis aan isku wareysanay ma lahaynin sabti axad hataa hooyada ama aabihii dhahan waa wareysanaa waxaa jirta waalidiin caruurta wareystaan la sheekaystaan maasha allah waalidiinta isku mid maa kuwa maasha allah ay jiraan laakiin still markaas caruurta la sheekaysanaysa aa wareysanaysa iyo hadda isku mid ma ahan hadda waqtiga haysatid awal maada haysanin waqtiga aa maanta haysatid ka faa'iideyso waqtiga aa maanta haysatid ka faa'iideyso waqti fiican haysataa fursad fiican haysataa adi iyo caruurta aa iskugu soo dhawaan kartaan caruurta banaanadii meel walbaa la soo xiray marka ka faa'iideyso jaaniska aa haysatid maanta iyo ku dhaafin caruurta la sheekaysta caruurta maxaa la dhahaa tan waxaad tushiin inaa sweet aa u noqotiin dad mafiic aa u noqotiin u jijilicsan isdadabciyo isku jilciyo caruurta soo dhaweeya waxa ku jira qalbigooda saa u ogaatiin insha allah intaasaa idiin sheegaa nafteyda iyo naftiinaba aan ku guubaabinayaa insha allah hooyooyinka siibo waalidiintoo dhan insha allah inay u foojignaadaan waaye taas caruurta inay la hadlaan ila sheekaystaan wax badana caruurta ku jirto markii lala sheekaysto insha allah hadduu ilaah yiraa weliba kuwa tiin ee jirka ah insha allah hadduu ilaah yiraahdo inkastoo kulligooda u baahan in la sheekaysto kuwa weliba tiin ee jirka ah insha allah walaalayaal ani kuwaan ii joogaan markaan la sheekaysto wallaahi bilaa wax badan aasaan may ahayd aa dhahay marka insha allah la sheekaysta caruurta intaasaa idiin sheegaya janalka naga daawanaysaanna waa janalka ayaan luul waxaan leeyahay asxaabta soo dhawaada like-ta iyo share-ka iyo commentiga janalka hala dhaafina subscribe gareeya kambaleelka furta saa u aragtiin waxyaalaha walaashin ayaan luul ay soo geliso waxaan idin leeyahay haddaa ku caajisteen videogan ka raali ahaada saasaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي